marxii maanta waxaan booqasho ku nimid aniga iyo xubno ka tirsan United Nations gaar ahaan hay'adda WFP iyo UNHCR xeryaha qaxootiga ee ku yaala duleedka magaalada Buulaburte oo ka mid ah meelaha ay ugu daran tahay macluusha iyo abaarta intaba runtii waxaan aragnay xaalad aad iyo aad situation-keeda u liito saa la socotaan Buulaburte waa magaalo 9 sano qabataysan oo xarakada shabaab ay hareereeyeen oo ay naf u diideen aad u mahadsanyihiin walaalaheen ka socda ciidanka Hiil walaal Jabuuti oo ammaanka magaalada sugaya runtii waa dhibaato aad u weyn shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqayaa in dad gurmad la soo gaaro dadka walaalahooda ay u soo gurmadaan waxaan aragnay waa xaalad aad u daran dad waayeelo ah caruur ah oo meel ay ku hidaan xataa aan haysanin oo dhibaato ay haysato oo runtii aad iyo xaaladooda ay xun tahay sidaas daraadeed waxaan rabnaa meel kasta ay Soomaali joogto ayada isu gurma jirtay inay isu gurmadaan oo ay gacan soo siiyaan dadkooda ayagoo soo marsiinay waxay ahaayeen guddiga gurmadka abaaraha heer qaran ee la sameeyay inay wixii allaale wixii gargaar ay soo gaarsiiyaan oo walaalahooda ay gurmadaan waa ka rajaynaynaa sidoo kale dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka intaba in dadkan la soo gaaro gurmad anaga waxaan u nimid xaaladooda inaan u kuurgalno codkoodana aan ku hadalno oo adduunka iyo hay'adaha gargaarka bixiyaba aan gaarsiino xarakada shabaab ayaan fariin u dirayaa walaalayaalow magaaladan 9 sanaad ku haysaan cunuqabateyn dadkeedii qaxootiye wada noqdeen magaaladan waa ku dhashay waa ku koray magaalo qurxan dad nadiif ay joogaan hanti haystay ahayd magaalada hadda waxay u taalaa si waxay u taalaa aad u dhibaataysan aad u duruufaysan dadka dhan ay qaxooti noqdeen waxaasna waa mas'uuliyadiina diinna waa sheeganaysaan islaamnimo waa sheeganaysaan dadkiina waxa u diideen naftiya u diideen noloshiya u diideen ma u qalanta magaaladan saa inay ahaato dadkeedana saan ay noolaadaan mas'uuliyadaas idinka iskale islaamnimo ma aha diin ma aha akhlaaq ma aha damiir ma aha Soomaalinimo ma aha intaba wax isku fala ayaa leenahay dadka ka qaada cunuqabateynta ka qaada xaasidnimada Soomaalidana qaasatan dadka siyaasiyiinta ah ee ku mashquulsan siyaasadda iyo manaasibta iyo kuraasta ayagana waxaan ugu baaqaynaa inay dadkooda soo fiiriyaan oo ay gurmadaan oo ay walaalahood kaalmeeyaan duruuftan inuu qof Soomaali maanta ku noolaado sax maaha oo buushkaas islaan 80 jira iyo ilmo masaakiin inay ku noolaadaan annagana guriyo waaweyn iyo nolol raaxo leh aan ku noolaano sax maaha oo aan ka fikirno kaliya taana kaliya ka fikirno maaha waa inuu damiirkana dhaqaajiyaa oo dadka masaakiinta u soo gurmanaa dadkana waxaa leenahay sabr hadduu Ilaahay yiraahdo waa in la soo gaari doonaa codkiina waa gaarsiinaa meel walba waxaana ku talagalaynaa insha Allah hay'adaha UN-ka ila socda iyo kuwa kale NGO-ga internationalka inaan ku dabagalno inay dadka gaaray gargaarka oo gaaray waa shaqadeena waxa meesha u nimidna waa inaan u kurgalno xaaladda sidee tahay. Assalaamu